waddankeeni Itoobiya ruukaad magaceena iyo salaanta naga qaadnay oo kaadadiga fiiri waddankeena la soo waraysaa magacaaga assalaamu calaykum magaca waxba igama gelisaa magacaaga afaaraaga ta waddanka maxaa naga galay magacaaga maxaa naga waddanka gudaha u galay magacaaga naga galay inayaaga aan waxba nagama gelin adiga booyinta ka hadal inaan maxaa ka hadlaa mar de waxaan ku weydiinayay hadalkeena maxaa magacaaga naga qusay anaga haye waran waddankan Itoobiya soo waray dadka waxa weydiinay inay lacag hadii ciidan baa la qorayaa moogta lagu yiraahdo ciidamo cusub baa tababar caawa lagu qaadayaa soo bax waddanka difaaciyay hadii lagu dhaho ma gal lahayd waddanka aniga maxaa iga qusay shakhsi baan ka ahay Itoobiya tir hadda hana qabsato baba taageeraya Itoobiya ya hadda hana qabsato hadalkan ka fiirso ka fiirso maxay tahay magacayga maxaa iga qusaya tir anaga Soomaaliya maxaa naga qusaya kana hadda ciyaartaniyo dhigayso wax kale hadana weydiin noo haysid adiga fiiri maskaxda waxay ku taallaa maskaxdayda madaxayga ku taallaa qaab noocee lagu soo koriyay korintaada nooga waran adiba family wadaniyiin kuma dhalmiya maxaa ka qaldan damiir la'aantaan iyo horgalnimadan iyo taajuusnimadan iyo dulinimadan maxay tahay waddankaaga sibaad u difaaceen adiga maxaa ka qaldan adiga hay khalkhalin walaal macaanu system baan ku shaqeeyaa ma difaacayaa tir waddanka war adiga waddan maxaa naga qusay magacayga maxaa ka qusay magaca system baa la maraa magaca i weydii si sharaf leh laakiin waxa waddanka iyo hal mar baa waxa qaraac ila soo galay magacaaga maxaa naga qusay magacaaga waddanka maxaa adu ma difaaci adaa kaamirad u watay ma difaacda adu anu way difaaciyaa maxaa ku difaacaysaa adu adiga energy-gaaga dhamaan qarraacdan maxay tahay cadayska adiga fiiri magacaaga ma rabno annagu waddanka ma rabno waddanka rabtaa shay Soomaaliya ugu imaanaysa qof asagii aan waxba duubin oo anagii wax noo sheegay wallahi billahi qof qayla arkaysa oo dadka ugu sheegay inay batara